بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مقعيقا واسعاد محمود علي waxaan kala soo hadlayaa dhulkii Lubanta ama Land of Frankincense. maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo saliida Lubanta oo loo yaqaano English waxa lagu yiraahdaa Frankincense Boswellia carteri. Frankincense waxa la yiraahdaa waa noocyo badan oo xabag ah, xabkaha wadankeena ka baxa iyo wadamo kaleba. laakiin noocan aan rabo maanta inaan ka hadlo waxa la yiraahdaa af Soomaaliga beeyan waa lagu yiraahdaa, عربي waxaa lagu yiraahdaa Luban Dhakar, English kan waxaa lagu yiraahdaa Frankincense Boswellia carteri. marka saliida macnaheeda rabaa inaan dadka u sharaxo. dabcan anaga waxaan sameeynaa saliidaha dhulkii Lubanta dukaanka dhulkii Lubanta ama Land of Frankincense. waxyaabaha aan aad ugu takhasusnay waxaa kamid ah saliidahan inaan sameeyno oo aan aragnay caafimaad badan inuu ku jiro. marka hadaan taariikh ahaan wax yar gadaal ugu laabto, saliidan waxaan ka sameeynay Lubanta noocaasa Luban Dhakarka la yiraahdo. waxaan la ogyahay taariikhda inay ku jirto Soomaaliya in la isticmaali jiray kumaan kun oo sano ka hor. Soomaaliya kaliya ma ahayn, waxa isticmaali jiray adduunka oo dhan, ama ha ahaato Chinese ka ha ahaadaan ama Hindiya ha ahaato ama dhulalkan kale. Yurub hadday bilaabeen inay fahmaan, adiga waa dhowrkii sano la soo dhaafay. laakiin dadkii hore masalan masaaridii hore Chinese ilaa ay hadda daawooyinkooda ugu badan uguna qaalisan waxay ka soo saaraan saliidahan noocan. marka saliidan waxa la yiraahdaa Boswellia carteri. waana nooc laga helay research badan marka laga sameeyay. qof walba internetka ku jira wuu akhrin karaa. waxaa laga helay waxyaabaha inflammationka la dagaalamo. inflammationka af Soomaaliga waxaa lagu yiraahdaa caabuq ama waxyaabaha infectionka keena. infectionka yacni intuusan bilaabanin waxaa ka horeeya inflammation. inflammationka waa intuu jirka dagaalamayo, laakiin marka jirka laga adkaado infection buu isu bedelaa nabarka. marka ha ahaado nabar gudaha ku jiro ama ha ahaado nabar jirka dibadiisa ah, labadaba inta hore intuu dagaalamayo waxaa la yiraahdaa waa inflammation. oo meesha way gaduudanaysaa, way bararaysaa, way kululaanaysaa. intaas waa intuu jirka la dagaalamayo inuu waxaan iska difaaco soo weeraray. laakiin marka laga adkaado waa markuu infectionka isu bedelo. marka waxaa la yiri waxyaabaha inflammationka keena ayay horta ka hortagtaa kow qofka markuu qaadanayo. haddii uu markaa nabarkii yimaado uu jirka dagaal bilaabana, markiiba inflammationkaas ayay daawo u tahay oo markiiba dagaalkaas uu jirka ku jiro ayay xoog siisaa. halkaas waxaa ku dhamaada marka wixii jirka yacni soo yacni dagaalka kusoo qaaday ayay markaa ka hortagaysaa ama ay la dagaalamaysaa. marka halkaas waxaa la arkay heer kansarkii xataa ay daawo u noqotay oo alxamdulilah. dabcan lama dhihi karo waxaan waa daawo, haddaad tiraahdid adduunka waa lagu qabsanaya, waa laisku xiraa. laakiin kolley tijaabo dadkii geliyey way ka wada hadleen, internetkay ku jiraan dad badan oo ilaahay ku caafiyey oo annaga aan ka mid nahay dadkii aan siinay daawooyinkaas oo ku caafimaaday ayaa jira. oo wixii practical waa la ogyahay inay jiraan. laakiin maanta aniga ma soo saari karo warqad ama maaragtay ii sheeg book ma soo saari karo aan leeyahay waxaan waa daawo kaalay qaata. daaway u tahay kansarka yacni. laakiin haddana waa aragnay alxamdulilah 3 sanaan hadda hawshan aan ku jirnaa. 3daas sano inta qof ilaahay ku caafiyey aad bay u badan yihiin, ama kansar ha noqdo ama xanuuno kale ha noqdaan. waxaa sii dheer dadka kale oo aan yacni aan Soomaalida ahayn oo internetka ku jira oo ilaahay ku caafiyey in badan iyagana. marka macnaheedu waa daawo aad iyo aad adduunka hadda maanta xanuunada lala dagaalamo oo dadka ay ka walwalsan yihiin. waxaa ugu badan xanuunada infectionka iyo waxaan hadda maaragtay tumoriska kansarka iyo waxaas oo dhan. dabcan waa tumoriska lagu sheegay waa toxins jirka ka batay, qaras jirka ka badatay oo jirka markuu isdifaacayo meel uu ku aruuriyaa qashinka uu iska soo aruuriya. haddii caloosha ay ka bixi weydo, dabcan dadka intooda badan caloosha taagan, markay caloosha ka bixi weydo suntii ama qarastii jirka hadday ka bixi weydo meel buu jirka ku aruuriyaa. meeshuu jirka ku aruuriyay ayay waxaa la yiraahdaa tumorkan ama buradan ay kasoo baxdaa kansarka keeni doonta. haddii uu qofka markaa weli uusan iska daaweynin ama jirkiisa uu nadiifinin, dabcan marka dambe kansar bay isku bedelaysaa. ilaahay inta qabto ilaahay ka caafiyo, inta kalena ilaahay ka badbaadiyo. laakiin inuu qofka la dadaalo ayaa ku jira, yacni inuu marka hore cuntadiisa ka fiirsado iyo waxa cunayo. marka bahashan marka Lubantan iyadoo la cabana way jirtaa, biyaha lagu darsadaa. qofkii raba inuu xanuunada ka hortago biyuhu ku darsanaya, maalin walba biyuhu cabayo inay ugu jirtaa fiican.
si markaas dabcan waxyaabaha lagu yaqaano waxaa ka mid a inflammationka keliya maaha inay maaragtay la dagaalanto yani inflammationka inay caawiso jirka in inflammationkaas uu isu bedelin inuusan isu bedelin waxaa la yidhaahdo infection taas jirka way ka caawisaa oo waa anti inflammation waxaa kaloo jirto waa anti bacteria bacteriyada oo dhan xanuunada maxaa keena xanuunada waxaa keena bacteria waxaa keena germs waxaa keena virus waxaa keena waxaasoo dhan ayay la dagaalamaan marka waxaa la arkay wax alla wixii xabkahan ku saabsan hadda maanta waxaan ka hadlaynaa ma rabo inaan kuwa kale u gudbo lugaan dakarkaan ka hadlaynaa maanta ama baswele karteri ama soomaaliga beeyo bahashan waxaan la arkay in ay tahay lugaantan wax mucjiso ah adduunkii horena daawadii la yaqaanay iyada ahayd soomaaliya waxaa loo imaan jiray safaro dhaadheer ayaa meelo dhaadheer looga imaan jiray keliya in xabkahan la qaato leanna waxaa la arkay daawada ugu fiican oo maanta adduunka taale inay tahay shalayna ay ahayd kumaan sano laga hadlayo ilaa iyo maantana sideeda laakiin dadkeeni ayaa hilmaamay ama adduunkiibaa waxaa lagu soo kordhiyay daawooyin chemical ah oo yacni xagga business iyo waxaasita u badan taas ayaa marka waxay keentay in aada loo liido daawooyinka noocan ama adduunkii oo dhanba laga taga daawadii dabiiciga ahayd oo daawo kale oo chemical ay ku jiraan dabcan dad badan ku xanuunsadeen dad badan ilaahay waa ku caafiyey yacni laakiin waxaa la ogyahay inay daawo walbo side effect leedahay laakiin markay noqoto xabkahan alxamdulilah wax side effect amayna arkin dabcan haddii wax laiska badiy side effect way yeelanayaan leanna waxay u baahan yihiin dowskan dadka u sameynay alxamdulilah way ku caafimaadeen marka waxaan rabaa halkaa inaan marka kasoo gudbiyo yacni taariikh ahaan ma raba inaan ku dheeraado waxaa la isticmaali jiray kumaan kunoo sano ka hor ayay soomaalida isticmaali jireen adduunka dhan isticmaali jireen haddana dad baa weli isticmaala sida chineska oo kale hindida oo kale soomaalida waa dadka ka tegay weliba ay maadaama ay wadankooda ka baxdo aadna oga faa'iideysanin haddana waxaan rabnaa inaan dadkii la baro oo lagu soo celiyo marka anaga shaqada ugu weyn aan ku jirno waxay tahay inaan dadkii cilmiga usoo gudbino isla markaasna inaan daawadii u diyaarino dadka oo wixii marka saliidihii hadday noqon lahayd kareemyadii hadday noqon lahayd wixii jirka lagu dhayi lahaa wixii jirka gudihiisa loo qaadan lahaa ka hortaga xanuunka waxaasoo dhan marka saliidan yacni faa'iidadeeda aada bay u badan tahay marka hadda waxaan rabaa inaan horta kusoo koobo intaan yar qofkii raba inuu kasii badsado yani waxaan waa mucjizo waxaan ka hadlayno haddana waxaan rabaa inaan yani dadka dareensiiyo daawooyinka farmashiyaha yaala ilaahay subxaana watacaala yani ma aha wax ilaahay lagu xiri karo ma aha bini aadan ayaa gacantooda ku sameeyey iyagaana magacooda ku qortay laakiin markay noqoto xabkaha ama maaragtay daawada dabiiciga ah ama dhirta waa ilaahay subxaana watacaala wax ku xiran waxaan shaygan markii uu qofka ku caafimaaday waxa ku jira 100% ilaahay kaliya ayaa garan kara ma naqaan anaga laakiin anaga experience-ga aragnay dadkii inay ku caafimaadayaan halkaas marka waxaa ku jira chemical component-ga ku jira xabagtan oo kale ilaahay kaliya ayaa yaqaana micnaheeda iyo sida ay ula shaqeynayso jirka laana jirkeena dhulka laga abuuray geedkana dhulku ka soo baxay marka waxaan ka hadlayno daawo ilaahay sameeyay iyo daawo bin aadanka sameeyay hadda kala tahay aniga ma dhahayo daawooyinkan kala yaal gadanin micnaheeda waxaan rabaa dadkii qof choices waxa la dhahaa jiray yani inuu qofka ikhtiyaarkiisa wax ku gadanayo qofkii rabo oo daawooyinkan dabiiciga rabo waxaan u diyaarinay daawooyin aad effective u ah faa'iido badanna ku jirto wax side effectna lahayn qofkii rabo hadduu uu dhinacaas kale ka gatana dee haddii uu ku caafimaaday oo isaga wax isaga dareemay kaliya side effectgaas inuu maaragtay isu diyaariyo dhibka kaga imaan lahaa ilaan daawo kasto maanta daawada ugu sarreysa adduunka hadduu nin ama qof dumar ay soo saarto waxaa la ogyahay in ay leedahay side effect kaamana qarinayan iyagaa meesha kugu soo qoray marka saas darteed waxaan rabaa yani in la ogaado daawooyinkan hadda annaga aan u diyaarinay dadka oo adduunka oo dhan ay nala yaqaanaan in ay yihiin ilaahay ayaa sameeyey annaga ma sameynin annaga wax kuma darsanin kaliya annaga waa u diyaarinay dadka micnihii iyo cilmigana waa usoo gudbinaynaa laakiin ilaahay kaliya ayaa dhihi kara intaanoo shay ayaa ku jirta sidaanayna jirka u anficaysa laakiin qofka soo sameeyey daawooyinkan kale magacyada iyo patentka loo sameeyey ninkii ama qoftii dumarka soo sameysay ama kambanigii soo sameeyey isaga ayaa ku dhihi kara intaanoo shay aan isku dardaray
dabcan daawooyinka waxa la isku dardara dadka kama warqabaan ingredientiga ma yaqaanaan waxa ku jira waxyaabo khatar ayaa ku jira ingredientka daawooyinka qaarkood oo xataa yani islaami kale dadka yani xalaal iyo xaraam inay tahay laisweydiinayo iyo waxaa ku jira waxaasoo wada madaxa kugu xanuunayo laakiin maanta ma gelayo marka maadaama waxaasoo dhan ay ka samaysan wax laysku dardaray yani ama cayayaan ha lagu daro ama dhagxaan ha lagu daro ama ha lagu daro chemical ha lagu daro waxay rabta ha lagu daro waxaas marka qofku markuu uu ku yani soo diyaariyo daawada wuxuu ku leeyahay war waxaana way kaaga imaan karaan iska jir marka qofka haddii uu daawadaas isticmaalo ku caafimaaday daawooyinka chemicalka dabcan ha isku diyaariyo marka side effectgaasi sida oo la dagaalami lahaa laakiin anaga waxaan garantiid insha allahu tacaala u siinaynaa waxaan inuu ilaahay sameeyey oo annaga aan magaca ilaahay subxaana watacaala aan ku wadno barnaamijkan oo leenahay calaa barakatillah qofku wuu ku caafimaadaya wuuna maaragtay wax side effectina kaga imaanaya alxamdulilah 3 sano iyo wax la jiraan wadnaa haddana waxaan aragnay yani in ay tahay way dhaaftay yani rajadii aan ka rajaynaynay wixii aan bartay rajadii aan ka rajaynayo way dhaaftay yani waxaan aragnay caafimaadkii inuu aad dadkii ugu caafimaadeen wax afkayga yani intaan ka sheegto oo aan lacag ku raadinayo ma aha dabcan waxa waa anaga business aan ku jirnaa meesha lacag way soo gelaysaa laakiin waxa ka horeeya businesska waa inaa dadkii loo soo celiyo yani wadankoodii inay arkaan faa'iidada ku jirta habkaha wadankeena ka baxa ay ugu horeyso lubaan dakarka marka lubaan dakarka waxyaabaha faa'iidada hadda aan aragnay ugu horeysa dabcan waxay la dagaalamaysaa infection oo dhan dabcan inflammationka waxaan dhahnay infection isu bedelaya marka infection markuu isu bedelo waxaan aragnay markaan dadka siino inay ku caafimaadaan ilaahay uu ka caafiyey subxaana watacaala inflammationka way la dagaalamaysaa infectionka way la dagaalamaysaa waxay la dagaalamaysaa bacteria wax alla wixii bacteria hadda maanta waxaa laleeyahay coronavirus meel walba virus laga cararaya saliidan qofkii dhowr dhibcood gacantiisa marsado wejigana marsado banaanka markuu u baxayo wax soo gaarayo oo ah bacteria ama germs banaanka uu ka keeni karo ma jiraan gurigiisa markuu soo galo dhaqaya wejigiisa iyo gacmihiisa meeshay ku dhamaanayaan marka alxamdulilah waxaan oo dhan waa wax hadda aniga aan yani proof gareyn karo in ay leedahay yani inay bacteriyada la dagaalanto sababtoo ah aniga waxaan sameeyaa waxyaabaha skin careka oo dabiiciyaan sameeyaa yani in badanaan ku jiray saliidahan iyo xabkahan intaan baranin ka hor aan samayn jiray waxaa dhibka igu badnaa wuxuu ahaa ma rabin inaan dadka chemicalka maadaama aan chemical ka cararayno chemical ma rabin inaan dadka oga dhigo xal oo skin careka inuu markuu uu dabiici yahay marka waxaan u sheegi jiray dadka inay talaagada geliyaan kareemka haddaan u sameeyo wixii wejiga lagu sameyn waxa o dhan waxaan dhihi jiray markaa isticmaashaan talaagada ha idinkugu jiro si uu bacteria u gelin especially samarka bacteriada way kusoo degdegtaa saasaan dadka u siin jirta laakiin markaan bartay dhowr sano ka hor xabkaha alxamdulilah barnaamijkaas waa ka gudbay oo ah in talaagada wax lagu ilaaliyo shayga hadda ku sameeyo kareemka aan sameeyo maanta oo aan ka sameeyo lubaanta ama malmalka ama hadiga ama xagarka aan ka sameeyo waxaan idin tusi karaa oo ilaahay subxaana watacaala uu markhaati iiga yahay 2 sano ka hor midaan sameeyey oo aanan talaagadna gelin meelna aan gelin ayaa wuxuu ii yaalaa meel oo kaliya inaan tijaabo fiiriyo inta uu joogi karo yani 2 sano ka hor midaan sameeyey yani maanta waa tusi karaa dadka qofkii u baahan inay weli wax bacteria ay gelin fungus on gelin germs gelin waxba funguska waxa la yiraahdaa yani boorka yarka ah oo shayga markuu uu yani isbedelo oo bacteria waxa soo gasho boorka yarka ah korkiisa saaran ma aqaan af Soomaali waxa lagu dhaho boor yaro maaragtay oo madmadow ayaa la yiraahdaa fungus kaas ma galo bacteria ma gasho isma bedelo sidooday u taagan yihiin marka macnaheedu waxa waaye waa antibacteria macnaheedu qofkii qaatay saliidan ama beeyadan iyadoo sidaada u qaatay jirkiisana sidaas ayay jeermiska uga dhaqaysaa gudaha jirka iyo banaanka jirka marka hadda maanta coronavirus haddii laga hadlayo saliida ugu fiican qof isticmaali lahaa 100% la dagaalamayso jeermiska waa saliidahan hadda aan ka hadlayno waliba tan hadda aan ka hadlayno waa tii beeyada ama luubaan dakarka la yiraahdo marka insha Allah tacaala ma dheereenayo hadalka waxaan rabaa marka inaan ku soo gabagabeeyo waxtarka ay leedahay waxay la dagaashaa infectionka jirka gudihiisa iyo banaankiisa waxay la dagaashaa bacteriyada waxay la dagaashaa jeermiska hargabka qofka markuu hargabka qabo dabcan ma dhihi karno anaga qofkan afka ka qaado qofku waa la ogyahay waxaan afka laga qaato oo weligeedna afka laga qaadanayo
internetkana way ka buuxdaa laakiin anaga dad iska hadda waxaana company yar oo hadda bilowday ma rabna inaa dhibaato iyo hadhoodii nala ku keeno dacwo oo yani lacag nala ka qaada special aniga hadda markaan Canada joogo waxyaabaha oo aad la isaga ilaaliya ina يعني هذا ترى وحي وداو أفكا كقاض طبعا وحال ولايه يعني قلط باقي شيء محكمة يأدون إلى العقاب ملايين هذا كبيح كرن أيام ماذا حلو صار مركا ساس درتت أولا أفكا ولا قاضن كرا أو واحد طبيعي بقول كي بقول هو لكن أنا كم قرينه إن علابت أنصار صارنا كم قرينه أفكا كقاضن هسا لكن هرقبك هدو قفك كدعو عاو هدا أني هرقب دريب قف أنا الحمد لله رب العالمين إلهي أنت وحن استعماله هرقب إلهي آد بمارك تأوغنا بتقلني وحيابها فيروس كي فلوق هرقب كي وحاسدن الحمد لله كل أنا أهان ما دام أنا ما تقولكو مشغول سنة هاي أو وحي أنا قعدت كل جرو إلهي وحاسو أي قبض بادي الحمد لله وأيضا ما أركن هرقبي أي وحاس مركا وحا أن كوضع قفكي مركو عاو هدو دريم هرقب إنه صاهاي أما قومن صاهايان doontuu marinaya dhowr dhibcan afku ka qaadanaya markiiba waxa dareemaysaa within saacad gudaheeda markiiba isbedel waa dareemaysaa caawa hadaa sidaas oo kale sameeysa ku seexatana subaxii waxa soo kacaysaa waxba adoon dareemaynin wixii shalay ku hayo dhan iyadoo ka bixin meesha laba maalin oo kale hadaa ku darto alxamdulillah jeermiskii dhan wuu dhintay dabcan waxa xanuunada keenaya waa virus iyo germs iyo waxaas iyo bacteria maadaama ay cuntadeeni iyo meel walba ay ku jiraan waxaan marka hadda adduunka cabsida badan socota oo la leeyahay coronavirus laga cararo mid qofkii guriga ku shita guriga dhan waxay ka dilaysaa jeermiska iyo bakteeriyada oo guriga bakteeriyada dhan insha Allah taala ma soo galayso xataa bahalada ka baxa markuu qofkii qaadanayana wuxuu yani u qaadanayaa ama ka hortag ama daawo labadiina wuu sameyn karaa marka qofkii dhowr dhibcood afka ku shubta hargab oo dhan iyo flu iyo waxaas alxamdulillah uu kaga caafimaad laakiin aniga ma iraahdo daawada kaliya ayaa shaqeyso xataa daawadan 100% aan arkay inuu dadka ay ku caafimaadeen waxa iraahdaa dadka mar walba waa ina cuntadaada wax ka bedesho cuntadaada waa inay noqoto cunto organic ah cunto dabiici ah si jirkaaga uu yani u helo enough waxa la yiraahdo nafaqo ama nutrition isu difaaci kara jirka aad indi marka ugu dambeysay waxa la rabaa jirka inuu isdifaaco ma ah daawo kaliya maanta qofka inuu raadinayo jirka asaga immune system waxa jiro difaaci jirka ayaa qofka ku filan ilaahay u program gareey laakiin jirka wuxuu u baahan yahay nafaqo badan in la geliyo marka anaga mar walba daawada marka qofka siinayno waxaan ugu darnaa in uu cuntadii wax ka bedelo oo cuntadii inuu organic ka dhigo taas waa mid laakiin taas oo dhan waxa ka horeysa in caloosha qofka in uu mar walba qaras bax sameeyo inuu isqaras bixiyo weekii hal mar haduu sameyn karin labada isbuuc mar haduu sameyn karin bishiiba mar inuu qofka isqaras bixiyo oo caloosha qofka haday taagan tahay micnaheeda xanuun oo dhan ku soo degdegay marka daawadan qofka markuu qaadanayo waa in la ogyahay caloosha inay nadiif tahay waa in nafaqo jirkiisa uu leeyahay si daawadii 100% ay u shaqeyso laakiin qof caloosha taagan tahay oo qaras jirkiisa ka buuxdo dabcan wixii way anfacayaan in yar laakiin way ku soo noqonayaan laana jirkii kamay bixin toxinki ku jiray marka qarasta jirka waa in laga saaro taas ayaa dhinac socota insha Allah taala marka taas hadda waxa jirka gudihiisa bakteeriyada inflammationka iyo infectionka iyo waxaas markaan ka hadlay iyo hargabka iyo waxaas laakiin maxay kale oo anfacada saliidan waxay anfacdaa qof alla qofkii nabraha wajiga qofkii nabra wajiga kaga soo baxay waa uu isticmaalaya xataa nabarkaas haduu uu kaga tago maaragtay haaro yar haduu ka tago nabarka markuu biskoodo يعني إسكار يرو كتجا إسكار كاس يركا أو نبر كمذوبادي حتى وترترا سليدا وحي في عنتها وجهي وفي عنتها المها يرك للشيء عاو والله مرين كرا المها هلا قد هاي سليدها إن جونسون إن كستو أن لجعلين كمبانية إن لقاها بلو أو لسكو حيري كرو لكن ويبدينهن كمبانية ذا صاري المها سليده هذا يكريمية المها لقد عارف كريمية سليدها chemical ka ku jiro hadaa la idin akhriyo chemical cream walba la soo gado ama saliid walba ilmihii dhashay loo mariyay ama ilmihii yaryara dhabarkeeda waxa ku qoran farta yaryarka ah lama rabo in aad akhrisid waxa halkaas ay ku jirtaa chemical ka khatarta ah marka saliidahan hadii ilmaha caawa dhashay loo mariyo waxa la arkay inay protection u tahay oo bacteria iyo germs min u imaaneen dadkeena horaan isticmaali jiray yani sida malmalko kale dadku Soomaalidu way ka soo gaareen
hadda dadka kirishtaanka waxay aaminsan yihiin nebi ciise isagoo yar calayhi salaam in loo maaragtay saliidahan xabkahan loo keenay oo isagoo yar maaragtay loo marin jiray yacni waa wax traditionkeena ama ku jiro taariikhdeena ama dhaqankeena ku jiro wax hadda la keenay ma aha ama cusub oo hadda la tijaabiyey waxaana waa daawo ilaahina siiyey wax gacanteena aan ku sameynay isku dardarkeedii ma aha wax ku jira ilaahay keliya ayaa yaqaana marka waxay la dagaalantaa iskaariska ama nabraha wejiga nabraha jirka meel walbuu kasoo baxo ilmaha yararka waa loo mariyaa markuu caawa dhasho waa loo marin karaa xataa wax dhiba male laakiin waxay leedahay maadaama ay waxaan tahay waa qalajiye hadda soomaalida dadka waxay u yaqaanaan qalajiye waxyaabaha inflammationka iyo infectionka la dagaalamo qalajiyahan maadaama saliidan ay qalajiye tahay waxawaaye dadka oo masalan wejiga marsanaya waxaan rabaa inaan usii sheego wejiga xoogaa dadka saliidda leh ayuu u fiican yahay dadka wejigooda saliidda leh laakiin dadka wejigooda qalalan yahay waxaan u sameynaa waxyaabo kale ugu dhex darnaa oo ku badinaya moistiga jirka inuu ka dhammaanin biyaha dad waxaa jira aslan jirkooda qalalan yahay dabcan dadka qaarkood biyaha aada uma cabaan biyaha aada in loo cabaa fiican laakiin dad waxaa jiro xataa qofka agekiisa markuu 40 kor u dhaafo dabcan jirka wuu soo qalalaya marka waxaa loo baahan yahay dadka jirkooda qalalan yahay saliidan toos uma marsan karaan hadduu qofka uu oil skin leeyahay oo saliida jirkiisa ay ku badan tahay oo kale waa okay wuu marsan karaa laakiin anaga yani daawo ahaan qofkii wuu isticmaali karaa laakiin moisturizer ahaan uma isticmaali kartid as a cream ahaan uma isticmaali kartid laanna anaga waxaan sameynay kareemyo jirka u fiican oo saliidahan ay ku jiraan oo qofka mar walba uu yani ka helaayo jirkiisii hadduu qalalan yahayna uu ka helaayo moist ma aqaan af soomaaliga wax lagu dhaho jirkii uu yani biyaha waayo waxaa la rabaa saliid iyo biyo isku jirto inuu helo jirka qalalan laakiin jirka hadduu yani saliidda ku badan tahay masalan saliidan oo kale way anfacaysaa laanno qaleelkay kusoo dadejinaysaa waxaan soomaalida waxay dhahaa qalajiye aslan waa qalajiye meeshii la mariyo way qalajinaysaa waxay ka qalajinaysaa wax alla wixii bacteria iyo germs iyo waxaas oo dhan ku jiray marka waxaan rabnaa yani dadka wejigooda qalalan yahay inay ka ilaaliyaan oo anaga kareemyo kalen usoo saarayna oo aan haddaba hayno yani oo jirkiina siinaya biyo iyo saliid labadaba siinaya hadduu ilaah yidhahdo marka taas xoogaa digniin dadka wejigooda qaleelka dareemaya iyo inay toos u marsadaan ma ah hadday marsadanayaan waa inay biyo lagu daro dabcan anaga kareemyada aan sameyno waa kareemyo yani sidii almost professional camal ah sababtoo ah kareemka iyo saliidda iyo biyaha marka laiswaafajinayo waxay u baahan tahay process laisku waafajiyo oo kareem uu kusoo baxayo processkaas dadka inta badan chemical isticmaalaan laakiin anaga waxaan isticmaalnaa waxyaabo dabiici aan isticmaalnaa qofkii u baahan insha allahu tacaala isagana waa aragti waa u diyaarinaynaa dabcan uma baahnaanayo talaagad iyo waxba in la geliyo banaankiisu ooli karaa insha allahu tacaala leanno shay kasta oo biyo lagu sameeyey biyo ku jira haba yaraadaan bacteriyada way kusoo degdegaysaa laakiin anaga alxamdulilah waxayna marnaba bacteria ugama cabsanayno maadaama aan waxaynaba xabkahanba ay yihiin antibacteria alxamdulilah marka waa intaas yani faa'iidada hadduu qofkii rabo inuu sii raadiyo internetka uu ka helaya dabcan soomaaliga uu yaryahay laakiin english iyo carabi badanaa ku jira qofkii rabo dabcan aniga videoyo aan kaga hadlayaa jiro ma badna laakiin insha allah barnaamijyadan tacliimaadka waa soo gudbinaya hadda laakiin saliidan ayaan si gaar ah rabaa dadka inaan u tuso faa'iidadeeda in ay faa'iido yar ahayn awalan bacteriada jeermiska inay disho marka labaad qofkii afka ka qaato aniga kuma soo qorayna dhalada laakiin qofkii afka ka qaato yacni in ay faa'iido badan uu ka helayo oo calooshii iyo jirkii gudihiisii oo dhan uu jeermiska ka dhammaanayo dadka lafa xanuunka iyo qabo lafaha lugaha yacni jilbaha iyo laga hayo hadday marsadaan waa treatment ma aha wax la yiraahdo daawooyinka waxay u kala baxaan wax relief la yiraahdo iyo wax treatment la dhaho relief waxa waaye masalan kaniiniga madax xanuunka qofkii qaatay oo kale xanuunku kaa jijinaya laakiin wixii madax xanuunka keena kaama qaadayo laakiin saliidaha waxa waaye not only inay xanuunka qaadayaan waa treatment laftiyay sii galaysaa jirka gudihiisa ay sii galaysaa wixii keenay xanuunkaas ayay dagaal la galaysaa marka dabcan hadduu qofka isticmaalayo mar walba jirkiisa marinayo ilaa inuu ka faa'iido oo jirkiisa uu sii xoogaysto ma ahane wax dhiba kagama imaana insha allah tacaala marka saliidan intaana kusoo koobaya wixii ziyaado ah hadduu ilaah yidhaahdo waa internetka waa laga heli karaa marka saliidan ilaa iyo 1500 sano kahor ayaa la isticmaalayay ما استغفر الله 1500 yaan dhehna
toban kun oo sano ka hor laakiin meelaha qaarkood waxaa ku qoran 1500 BC yani taariikh nabi ciise ka horeysa calayhi salaam xataa waa la isticmaalaya lagu leeyahay يعني intaasoo dowlad ayaa Soomaaliya ka qaadanaysa Soomaaliya maanta yani dhibaatada ku dhacday micnaheedu ma aha wadan iska liita saas inuu ahaa weligiis wuxuu ahaa qani ah oo adduunka oo dhan u yimaado badaas weyn yani loogu yimaado business loogu yimaado alaabadan iyo xabkahan laga qaato weligiis qani ahaa wadankeena laana waxaan ayaa ilaahay natural resource-gana ilaahay siiyay subxaanahu wa ta'ala marka ha laga faa'iideysto anaga waxyaabaha aan ugu talagalnay dadka inaan usoo saarno waxaa kamid ah daawooyin oo bedel ah daawooyinka farmashiyaha qofka haduu ka daalay ama waxba u tari weyday bedelkeedii ayaan u diyaarinay qof alla qofkii u baahan wuuna la soo xiriiri karaa insha Allah Soomaaliya Kenya Canada يعني meelo badan ayaa maaragtay qofka ka helaya insha Allah ta'ala marka bi'inillah waxa kale jiro barnaamijyo badan oo internetka ku jiro English ku baxa marka dabcan waxa jirto isla saliidan oo laga sameeyay distilled way oo distilled ah lagu sameeyay mesela distilled waa maxay marka la kariyo bahasha la kariyo beeyada uumigi ka baxay saliida ku jirta ayaa meel lagu shubaa marka waxa lagu leeyahay 100 kiilo waxa ka soo baxaysa 5 kiilo 5% ayaa ka soo baxaysa 100 kiilo maanta marka la kariyo oo lubaan ah waxa ka soo baxaysa 5 kiilo oo saliida ka soo baxaysa macnaheedu fiir halkaas waxa ku khasaartay lubaan badana ku khasaartay sida aniga aan dareemayo يعني waxaan rabaa dadka inaan oga sii digo inay fahmaan saliida internetka lagu gadayo oo la yiraahdo essential oilka ama baswele karteri essential oil companiyo badan gada ma dhahayo yani waa saliid xun laakiin waa saliid aad u anfac badan laakiin beeyadii ayay maaragtay khasaaro badan gelinaysaa halkaas marka waxa ka soo baxaysa beeyo badan in loo khasaariyo saliid yar inay ka soo baxdo saliida marka la soo saaro kadib waxa lagu leeyahay waxa isticmaali kartaa inaad saliid kale ku sii qasatid marka saliid kale in lagu qaso sideeda toos uma isticmaali karto laana waa very concentrated dabcan kansarka waxyaabaha kansarka lagu daaweeyo ayay kamid tahay oo kansarka yani saliida si toos ah loo arkay inay kansarka u dilayso waa essential oilka qof alla qofkii kansar iyo waxa iska dareemana yani waa si degdeg ugu shaqeynaysa oo aad baa yani ugu recommend gareynaya in uu qofka saliidaasi doonto hadii uu kansar jiro si degdeg ayay maaragtay yani wax tar u leedahay ko tan labaad يعني mar walba waa ina saliid kale lagu dhaxdaro mar walba laakiin teenan anaga waxa waay hadda anaga aan sameeynay waa same effect alxamdulillah laakiin jirkii waxay ula shaqeynaysaa si maaragtay tartiib ah qofka hadii uu hore u bilaabo intaan xanuuno ku imaanin way ku sii fiican tahay laakiin mar walba waxaan aragnay dadkii kansarka noo soo sheegay alxamdulillah in ay same effect inay noo soo sheegeen sida u shaqeysay ilaahay kaliya yaqaan ma dhihi karsaanaysan u shaqeysay laakiin saliidaas kale internetka lagu gadaayo ama dadkeen xataa Soomaalida ay qaar ay hayaan way fiican tahay laakiin halkaas waxa ku khasaartay beeyo badan ayaa ku khasaartay sida aniga aan dareemayo laakiin nafc ahaan ma sha Allah aad bay u nafceed u badan tahay lacagteedana waa qaali marka insha Allah anaga saliidaas waa hayna company Soomaaliyan ka qaadanaa oo qof alla qofkii u rabo qofkii u baahan wuu naga soo codsan karaa companygaas Soomaaliya aan ka soo gadanaa yani waa saliid aad u nafac badan laakiin teenan iyo taas waa farqiga u dhaxeeya sidii loo sameeyay teenan anaga iyadiyo sideedaan xabagtiyo sideedaan ka sameeynayna oo aanan maaragtay yani lagu dareenin waxyaabo kale only hal saliid oo lagu soo saaro hadhow midaas kale markii essential oil ka isticmaalayso saliid kale ku dari doontaa laakiin anaga already saliid hadan ku darnay macnaheedu waxa waay labada jeerba saliid ayuu u baahan yahay laana waa aad concentrated u yahay marka insha Allah ta'ala labada macnaha ku jira halkaas raba inaan ka fahansiyo laakiin waxa aan rabo aan hadda hadalkan u soo qaatay companiyo waaweyn oo aad lacag u leh ay oo waxa jira companiya internetka ku jira oo waxay aad u faaniyaan xabagta wadanka ka soo baxda Cumaan iyo anaga waxa labada xabag labadaba waxa la yiraahdaa baswele karteri ama waxa la yiraahdaa sakra labadaba Soomaali sakrana waa la dhahaa baswele karterina waa la dhahaa sakra laakiin magaci waxa la wareegay sakra macnaheedu waa sacred يعني wax muqaddas oo kale يعني waxa la wareegay Cumaan ayaa la wareegtay marka maanta Cumaan meel walba
ayadaa waxaa loo mariyay inay saliidan hayaan oo tii kansarka dilaysa ay tahay waa nooca ugu fiican xataa dadkeeni in badan baa laga dhaadhacsiiyey inay tii cumaan naga fiican tahay iyagana 4-9 waxay dad badan baa ku jira oo iyaga ah internetkay leeyihiin tii Soomaaliya anaga ka fiican yani lacag bay galeen dabcan anaga cumaan lacagteeda lama tartami karno wadankeena wili waa yani dhibaato ka jirta lacag badan ay xaygeliyeen company especially young living company la dhaho ayay lacag galiyeen oo advertisement xoog loo sameeyay in ay beeyadeena laga fiican yahay laakiin marka la fiiriyo qofkii raba study-ga laga sameeyay waa u soo diri karaa qofkii email ii soo diro waxaan u proof gareyn karaa in teen hadee yani ma dhahay teena ka fiican laakiin waa isku mid labadooda laano meesha ay ku yaalaan buuraha ay ku yaalaan waa isku area buuraha ay ku yaalaan iyo badda ay ku yaalaan kaliya dhulka kala go-ayo badda cas ay soo kala dhexgashay maahan isku dhinac ayay ku yaalaan badday kusii wada jeedaan isku sii ay u baxaan wax ay ku kala duwan yihiin ma jirto saakra iyo saakra la yiraahdaa laakiin cumaan ayaa lacag badan ku bixisay in tooda suuqa la geliyo dabcan yani allahu aclam يعني حتى مقع تين انت لقاته مقع لنقو قرطو إلهي كليا يقانا لكن وحربا إذا كان إنا درينسيو ودن كان أن لعق قشنو ودن كان أن مال قشنو وحين أن مالك تسوق جينو وحين أن دادك كدا دعسينو أن دفاعنو أن دادك وح الله وحي أي سو صاران ويكوفانان وين سبورت قريان وين الدفاعان لكن أنا تانا وحامل لسا ودن كان دنب إن لقا قوستا إنو ودن سو هقاقي دونو ودن هقاقي دونو إنو يوو هقاقي دونا المهن أن ودن كو هقاجينو ودسنو أن حد بلاونا إن أي ماركتي أي بريدتو إن شاء الله تعالى أي كمار مكران أدونك هدا ما أنت أنا قدبت نقول عدي المهن أن كبت بادينو ودن كان أمال قشنو داد كاني إن بيدا إن سو ساراي أما لها حجيغا أما بيع مشتركة كجري يعني waa faa'iideystaa lacag badan lacag yar inta laga qaado adduunka lacag badan lagu kala gataa laakiin anaga hadaan daawada fahno oo anaga aan daawo ahaan u isticmaalno anaga yaa wadankeeni maal gelinayna inta meel kale maal gelin lahayn daawooyin Switzerland laga soo saaray iyo daawo laga soo saaray meel kale Jarmal laga keenay Yurub laga keenay waxaas wadankeeni daawada taala kaliya cilmiga loo baahan yahay cilmigan alxamdulillah maanta hada aniga aan leeyahay cilmiga xabka haya dad badan oo kale ila mid way jiraan dad badan oo kale cilmiga dhirtii Soomaalida haya way jiraan kaliya dooskan iyo waxana laga walwala dooskina waa hayna waxaan haynaa dhir aad u badan ayaan haynaa oo micnaheedu dhan mar hore inta la baaray 30 sano 40 sano ka hor Soomaaliya inta la baaray la soo saaray yani micnaheedu iyo dooskeedii iyo meesha daaweynaysa iyo geedka uu yahay iyo magaciisa iyo wixii dhan waa haynaa laakiin waxa loo baahan yahay kalsooni in la isku kalsoonaado marka wadankeena waa wadan qani ah ilaahay baraka badan galiyay aan maal galino aan wixiisa aan ka faa'iideysano aan soo saarano marka dadka hadda maanta hadee yani product yar ay jeclaadaan aad bay u faaniyaan dadkeena waa dad yani aad maaragtay xamaasadooda u fiican tahay laakiin haddana waa in xamaasadii meeshii saxda ahayd la geliyo wadankeena hadayna aan faaninayni wixii yaalay ama ka faa'iideysanayni adduunkii oo dhan maanta faaninay oo la leeyahay basweele karteeri oo maaragtay beeyadeenan adduunkii dhan tii Soomaaliya kansarka disho tii Soomaaliya kansarka disho tii Soomaaliya meel bay ku jirtaa iyadoo cumaan ay dhinac naga ciriirinayaan haddana inta research aan ka helay oo la leeyahay tii Soomaaliya ayay waxay dishaa yani waxa lagu tijaabiyay kansarka dumarka ku dhaca oo riximka kaga dhaca ayay ku tijaabiyeen oo ay dad badan ilaahay kaga caafiyay waa tan Soomaaliya mida researchgaas laga soo saaray marka taas hadda ka buuxda internetka marka maadaama la arkay tii Soomaaliya annagii laakiin manhin dad raba inay waxoodi suuq geeyaan ma fahmin marka annagii marna inaan ka faa'iideysano ina adduunkii ugu faano oo annaga aan ka faa'iideysanano yani marna marka waxa loo baahan yahay in la helo dad badan oo waxaan ku dhex jira hadda Soomaalida beeyada way gadayaan iyo xabkaha laakiin waxaan rabnaa dadkii gali lahaa cilmiga inay soo saaraan xabkaha ku jiro cilmigaas inay dad ku takhasusaan inay muxuu ahayd soo saari karaan in la helo chemistry dadka yani isku dardari lahaa daawooyinkaanito yani dabcan ilmaheena adduunkii dhan wada jooga oo adduunkii dhan wax ka wada baranaya maxaa loo heli waaye marka in lagu encourage gareeyo ilmaheena in wadankeena waxa ka soo baxa la hormariyo la develop gareeyo oo laga soo saaro yani wax si professional ah daawooyin loo soo saaro kareemyo loo soo saaro يعني waxaan ku soo dhaweynayaa yani barnaamijka hadda ku soo gabagabeynaya
dadka in laga helo dad xabkaha ku takhasusa iskuulaad in la furo dabcan ani insha allahu tacaala waxyaabahan ka shaqeynaya ka mid tahay in la helo dhirta iskuulaad lagu baranayo ee ugu horeysa xabkaha marka in yacni dhalinyaradii lagu encourage gareeyo adduunkii oo dhan dad walba meeshooda hal geed hadduu kasoo baxo way ku faanayaan annaga fiiri kumaan kun oo geeda haysanaa iyo malaayiin geedo oo aanan maanta adduunka ugu faanayn inaan ka faa'iidaysana iska badaa marka taasaa maanta dadka ugu yeeraya saliidaaniita marka annaga waa haynaa Soomaaliyan ku haynaa Kenyaan ku haynaa Canadaan ku haynaa qofkii u baahan Yurub waa loo soo dhoofin karaa insha Allah tacaala Afrika oo dhan insha Allah tacaala waa geynaynaa meel walba adduunka waa rabnaa inaan geyno laakiin kambaniyo xoog yacni aad lacag leh ayaan la tartamaynaa laakiin xoog waxaan u baahannahay dadkeeni inayna siiyaan yacni maaragtay support حتى قفكي هل ضل انتو تجابي كهل وايو فإذا uu raadinay يعني waa hal mar naga gadatay mar daba nooma soo noqonaysid يعني taas waxa waaye hal customer aan ku lose gareyn yani customer badan aan ku lose gareynayna hadaa aragtid inay bahashan shaqeynayaan laakiin haday shaqeynayso ka waran haday shaqeynayso adiga iyo ilmahaaga iyo reerkii oo dhan ay faa'iidada ka heleen dabcan halkaas ay markaa waxaan rabnaa inaan support ka helno dadkeena Soomaalida ah in ay waxayni maaragtay annaga aan soo saarnay insha Allah kambaniyo badan oo nalamida inay soo baxaan oo wixii aan maaragtay shaqo wada galino oo dadkeena iyo wadankeena kor loogu soo qaado especially next generation in la badbaadiyo in adduunka u baahan baahida maanta hayso inay iyaga ka badbaadaan waxa kaliya looga badbaadi karana waxa waaye wadankeena wax soo saar in laga helo dad wax soo saari kara in laga helo sidaana waxa ugu maaragtay guwaabinaya qofkii maskaxdiisa ay furan tahay iyo qofkii dhalinyaro amaanta raba inuu professional wax inuu helo يعني برنامج professional oo ka shaqeyn kara dad badan ay weydiiyay dhalinyaro especially laakiin fursad uma helin inaan maaragtay tababaro laakiin insha Allah tacaala waa waxa aan ka shaqeyn doono laakiin waa in dhalinyaradii lagu gubaabiyo in ay fieldigaani taqaataan insha Allah tacaala dabcan cilmiga internetku ka buuxa maanta awal waxay cilmi waa loo safri jiray meelaha loo aadi jiray maanta cilmiga internetku ka buuxa marka waxa loo baahan yahay it's time يعني in anagi inaan wadankeeni maal gashano waxna ka soo saarano qofkii wadanka wax ka soo saareen in lagu maaragtay lagu support gareeyo maadaama ay wadankii uu yahay wadan dhismo u baahan in la soo dhiso insha Allah tacaala wabillahi tawfiiq ilaa waxaan ka rajaynayaa inuu hadalkaygan uu yahay hadal barako ku jirto ilaahay inuu iyo barako ii geliyo inuu tawfiiq ilaahay ii geliyo dad badan inay wax ka fahmaan khayr ku jiro dad badan ilaahay uu ku caafiyo qofkii saliidan gato guaranteed insha Allah tacaala inay shaqeynayso laana Allah ayaa daawadan keenay annaga ma keenin annaga processkii aan dadku u sahalnay cilmigana waa u soo helnay waa u soo gudbinayna qofkii daawadan gato dabcan WhatsApp ka haduu igala soo xiriiro waxaan u soo dirayaa wax alla wixii cilmiga ku saabsan حتى هدي قفك إنجليش وأقوانين af Soomaaliya ugu badalaya isagoo af Soomaali u badalan research wixii laga soo sameeyay researchiyada badan wixii adduunka laga soo saaray dabcan insha Allah website aan leenahay website keenana maaragtay insha Allah meesha waa ku soo qoraya website keena qofku gali kara English ku qoran yahay laakiin insha Allah tacaala hadaa helo maalin qof af Soomaali website af Soomaali yani noo qaban kara oo xataa ay noqoto inaan ku beegareeno insha Allah tacaala waa rabnaa waxayna oo dhan yani website ka duu cusub yahay laakiin information badan aan rabaa inaan soo geliyo oo English iyo Carabi u badan qofkii noo tarjumi lahaan insha Allah waa u baahannahay marka waa kaasa website keenana meesha uu ku qoran yahay insha Allah tacaala daawadan waxaan oo dhan waa haynaa hadda marka maanta waxaan soo gudbiyay daawadan saliida lubaanta ama lubaan dakarka la yiraahdo baswela karteeri la yiraahdo Soomaaligana beeye lagu yiraahdo ayaan maaragtay aan sida u fasirayay insha Allah tacaala wixii inta ka dambeeyay saliidaha kalena waa soo gelinaya insha Allah tacaala khayr ilaahay waxaan ka rajaynayaa inta xanuunsan ilaahay inuu caafiyo inta caafimaadka qabtan ilaahay inuu u ziyaadiyo cuntooyinka organic laga dhigo caloosha qofka haday taagan tahay 2 maalin haduu musqusha tagin micnaheedu waxa waaye caloosha يعني waxay aruurisaa qarasta xanuunada keenta ayay aruurisaa waa in qofka calooshiisa soconayso daily qofkii u baahan waxaan haynaa daawooyinka caloosha lagu socodsiinayo dabiici ah haynaa qofkii u baahan maaragtay waa diyaar insha Allah meel walba oo dukaankeena ku yaalo wabillahi tawfiiq assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh